السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaad walaalahayga sharafta leh waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan meel walba aad joogtaan. marka hore aan ku salino nabigeena suuban عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. soo dhawaad walaalahayga sharafta leh, fadlan marka hore ay ugu cusub tahay subscribe isaar, video hadduu ku cajabin like isaar, asxaabtaadan u share garay si uga faa'iidaystaan. maanta waxaa idin wadaa xulbo kaale arag ah iyo malab la isku daraayo. waa xulbo iyo malab sida loo sameeyaan ay fududahay, xulbadana faa'iido badan ayay leedahay. haddii hooyo la nuugayo aad tahay oo kale xataa caanaha way badisaa, waxyaabo badan ay u roon tahay, xanuuno badan way u roon tahay, dhiig karka iyo sokorta ay ka mid yihiin, jilba xanuunka iyo dhabar xanuunka oo kale way u roon tahay. haddii aad tahay qof daal badan muxuu ahay waxay ku siinaysaa awood iyo tabar ay ku siinaysaa oo daalkaas faraha badan ka yaraanaya. qof fudud oo waxaa noqonaysaa hawshaada saarabta u qabsatid. haddii ahaa jirto qof muxuu ahay daawooyinka xanuun baabiyaha mar walba cuno uma baahanaysid mar kale. sidoo kale haddaa u baahan tahay inaa iscayilsiisid oo kale waa lagu cayilaa, waxyaabaha lagu cayilo ayay ka mid tahay. marka haddii aad muxuu ahay maalintii 2 jeer camal isticmaashid, isticmaalkaagan aad badisid waxaa isticmaalaysid waad ku cayilaysaa, laakiin si khafiif ah haddii aad u cuntid kuma cayilaysid, laakiin faa'iido badan ayaad ka helaysaa. daawooyinka badan oo aad qaadatidna waad uga maarmaysaa insha Allah. cudurro badanna way u fiican tahay sida aan hore u sheegay. sidoo kale haddii aad tahay dadka madax xanuunka badan, caajiska badan, hoosha muxuu ahay aan qabsan karin, waxaa noqonaysaa qof khafiif ah oo fudud oo aan daalaynin, daalku ka dhamaanaya insha Allah. ka faa'iideysta. aniga sida aad ogtiin xoogaa maalmaha waa xanuunsanaay, ilmo yar iga soo halaabay alxamdulillah. marka dhabarka ay xanuunayo wax kale ma ahan, marka saasaan u sameysanayaa. waxaan jeclaystay marka asxaabteyda in ay ka faa'iideystaan. aan dhowr jeer hadda kahor waa isticmaali jiray, marka haddaa isticmaashid oo kale waxaa isku arkaysaa khafiif inaad tahay, inaad fudud tahay, inaad wax walba aad qabsan kartid aad dareemaysaa. kaniiniyaasha xanuun baabiyaha oo la cunane waa looga maarmayaa oo meelba kumaba xanuunaysaba haddaa hal marba isticmaashid. marka saa ujeediin waxaan isticmaalayaa xulbada budada ah tan shiidan waaye, iyadaan isticmaalayaa. biyaan la dhigayaa marka hore. sida loo sameynayna way fududahay insha Allah. ka faa'iideysta, waadna ka heli doontiin, asxaabtiina uga faa'iideeya. xulbadana waxaa la dhahaa haddii ogaalahay dadka faa'iidadeeda miisaankeeda oo dahab ah ay siisan lahaayeen, sidii ay qiimo badan ay u leedahay, miisaankeeda oo dahab ah ayay siisan lahaayeen. marka haddaa ogtihiin maba iska joojin lahayn faa'iidada ay jirka u leedahay. marka hadda waa sameynaynaa, ila socda walaalahayga sharafta leh. waa gudagalaynaa sida aan sameyn lahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hadda xulbadii ayaan sameysanaynaa. inta waxaa iigu jiro muxuu ahay koob iyo bar biyo ah. marka biyaha waxaa la rabaa inay saas u dhaqdhaqaaqin, markay dhaqdhaqaaq istaajiyaan waxaan ku darsanayaa xulbadii ayaan ku darsanayaa. xulbadina waa tanaa way shiidan tahay. biyaha kaas way istaageen, wax yar ayaa u dhiman. waa ku dareynaa hadda, laguma shubaayo, saas ayaa leedahay. waxaan ku darsanayaa 2 qaando oo xulbo ah insha Allah. xulbadaani hadhowdi hoos u dagaysaa, kaligeed hoos u dagaysaa, biyaha soo kormarayo. biyaha markay soo kormaraan biyaha laga daadinayaa, kadib waa la garaaci doonaa insha Allah. saas ayaa ugu shubaynaa. waxyar ayaan ku darsanayaa haaf. isku soo noqonaynaa sida aan yeeli doono. xulbada hadda aad arkaysiin kulligeed hoos ayay u degaysaa, lama taabanayo, ma la riixayo, haddii kale isku qasmaysaa. marka meesheeda saas u ooleysaa. waxyar kadib ayaan isku soo laabanaynaa. isku soo noqosho wacan asxaabteydii. xulbadii waa daboolay, sidaas ayay kusoo baxday. waa sida ugu fudud oo aad xulbo u samaysan kartid. biyihii waa kaasoo soo kormareen, xulbadiina way hoos martay, sidaas ayayna u badatay. marka hadda biyihii ka miirayaa oo isku soo noqonaynaa walaalahayga. kadibna saas waxaan ku sameyn doonaa iyo sida aan ka dhigi doono ila arka.
waa kaas waa ka soo miiray biyihii saas ay u jilacsantahay ujeediin. marka waa la qasayaa, waa la garaacayaa iyada dhanba. kuskuuska dhan laga baabi'inayaa. kuskuus ma lahan laakiin saas ayuu eg tahay sida soor oo kale, laakiin waa garaacaya waxaan ka dhigayaa sida kareemo oo kale ah oo xumbo ah ayaan ka dhigayaa. haddaa rabtid waxaa samayn kartaa haddaa jecesha inaad qandac ku cabtid qaandadan nuskeed hal qof hadduu yahay waaye waxaa ku karkarinaysaa hal qaando hal bakeeri oo caano ah ayaa ku karkarinaysaa. marka aad ku karkarisid waxay ku noqonaysaa mashaari oo kale, waana cabaysaa. marka xir ay kulaalka uu ka baab'o qandacsaa ku cabaysaa. marka hadda waa garaacaynaa sidaan kasoo dhigayana waa isku soo noqonayna walaalahayga sharafta leh. waa saas ayaan usoo garaacayaa. waa kaas sidaas ayaan kasoo dhigay. saas ayayna u badatay iyada dhanba maasha allah. saas ayuu u barakooday. muxuu ahaaya haddii aad caano korkarsanaysid sidaan hore u sheegay oo qaandadan haafkeed bakeeri caana aad korkarsatid ood ka dareentid inay adeeg tahay caano kale kusoo darsanaysa si jileecii kugu noqoto. maxaa yeelay iyada biyaha ama caanaha haddii lagu daro way badataa, sidaas ayuu u badataa. marka hadirtaan caanihii iyo iyadii ayaan isku qasaynaa. haddana qaybta kasoo hartana waa daboolanaysaa, talaajadaad gashanaysaa. maalin walba intii kugu filan ayaad ka isticmaalaysaa insha allah. hadda saa u garaacaya iyada dhan xumbo ayaa gudaha ka gashay, hawo aa gudaha ka gashay oo muxuu si fiican u garaacay. xataa markii saan loo muxuu ahay biyaha loola dhigo oo saan loo garaaco wuu yaraanayaa, qaraarkeeda wuu yaraadaa. oo qaraar badan ma lahan, qaraar badan ma yeelanayso haddii aan neceb tahay xulbada qaraarkeeda oo kale. waa kaas masha allah. waxaa kaloo ku darsanaynaa hal qaando oo malab ah, waa daawo maasha allah ah. hal qaando oo malab ah ayaan ku darayaa. malabka waxaa waaye wuu dhacdhacayaa maanta oo dhan. waxaa rabaa hal qaando oo buuxdo inaan ku daro kaas. waa ku garaacayaa, macaan ka dhigayaa markiisaan malabka loogu daro. muxuu qaraarkeeda lama dareemayo. oo jeedin waa isku qasaynaa hadda. waa kaas iska arag ay kusoo baxday. muxuu ahaay waxyaabo badan oo runtii xulbada maasha allah. insha allah ka faa'iideysi wacan. qaybtan ku hartayna maalin walba intii kugu filan ayaad caanaha ku darsanaysaa iyo malabka waa isku garaacaysaa. haddii casal ayaga maqashiina malabkan ka wadaa saas ula socda. marka waxaa ku garaacanaysaa caano iyo malab ayaa ku garaacaysaa iyadoo diyaar ku ah oo talaajadaada kugu jirto. marka waa cabaysaa markaa quraacdid ka bacdi hal saac camal aad joogtid quraacda kugu dagto waa cabaysaa. adiga iyo xanuun oo dhan waa isdiiseen, dhabar xanuun, jilba xanuun, madax xanuun. haddii qof caajis badan aad tahay caajiska dhan kaa baaba'aya, waxaa noqonaysaa qof firfircoon. haddii dadka aad tahay maalin walba kaniiniyaasha xanuun baabiyaha cuno waa uga maarmaysaa. adiga dhanba waxaa noqonaysaa sida faras oo kale, socodka iyo shaqada kuma dhibayaan. marka insha allah walaalahayga sharafta leh ka faa'iideysi wacan. maanta intaas ayaa idinkugu talagalay. cashirkan intaas ayuu ku egyahay. ka faa'iideysi wacan asxaabteyda sharafta leh. marka waxaa idinkaga tagayaa sida caadada noo ahayd salliga nabigeena suuban عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باي أصحابتي شرفت له.